waxaan u gudbayaa malafka shaqadaadii amniga ee NISA haddii aad ii ogolaato oo ay ka buuxaan dhacdooyin waaweyn oo dadka Soomaaliyeed ay siyaabo kala duwan aragtiyo uga haystaan hay'ad xogteedu kooban tahay macluumaadkeedu aad iyo aad dadka Soomaaliyeed xog badan uga hayn waxaan diyaar u nahay malafka inaan furno soo dhow mardan waraysi ka ogolaado waa inaan ogolaado su'aalaha waxaan u gudbayaa malafka amniga iyo NISA fahad ka shaqaysay NISA intaad tagin ka hor hay'ad amni mise baratay aqoonteeda ma baranin waxbarashadeeda aniga amni kama mid ahayn hay'ad amnina kama soo shaqaynin labadaba maya hay'adda NISA hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed waa hay'ad xasaasiya oo macluumaadka dalka kuwa ugu waaweyn hadaysan ahayn tan koobaad adigoo aan wariye soo ahaa siyaasadda muddo kooban ka shaqaynayay hay'ad amni oo u baahan macluumaad sirdoon iyo xogaha la xiriira sidee madaxweyne farmaajo kuugu aamin waxaan u maleynayaa inaa u baahan tahay inaa fahamtid hay'adaha sirdoonka dadka madaxda ka noqda dunida oo dhan backgroundkooda adduunka oo dhan way ka dhacdaa ma aha 90% waxa madax ka noqda dad backgroundkooda siyaasad ka yimid waxaana lagu doortaa laba arrimood khibradiisa siyaasadda dalka taariikhda dalka aqoonta uu leeyahay iyo kalsoonida madaxweynaha uu ku qabo marka wax oo bidca ku ah Soomaaliya ma aha adduunyada badankeed waxa loo dhiibaa dad ama diblomaasiyadda ka yimid ama siyaasadda ka yimid ama military ka yimid marka wax cusub ma aha waxa leedahay anoon hay'ad amni ka soo shaqeyn aqoon amni soo baran NISA in la ii dhiibay sax bay ahayd madaxweynaha ku qancay madaxweynahana iga dhigay oo aan ku faraxsanahay waxaan ku iri bidca ma aha ariga taliyaha booliska ma noqonin taliyaha military-ga ma noqonin laakiin sirdoonka qaranka adduunka oo dhan waxa loo doortaa dad siyaasiyiin laakiin ayada ka culus amniga iyo booliska marka laga hadlayo military iyo booliska nabad sugidda soo wax ka sareeya marka amniga qaranka laga hadlayo waxa laga fakaraa horta shayga wuxuu noqdaa la yaab marka ay Soomaaliya bas samaysay Mareykanka ka dhacdaa Yurub oo dhan bay ka dhacdaa Carabaha oo dhan bay ka dhacdaa Asia ka dhacdaa waxa loo dhiibaa qof baan garoonkiisa oo siyaasi yahay 90% aan ku dhahay laakiin waxa lagu doortaa qof maskax u leh xogtii amniga iyo xaaladda siyaasadda dalka intuu isku dhex kariyo maslaxada qaranka inuu ka soo dhex saaro qofkaasna madaxweynaha yaqaan laakiin isku duruuf ma nihin Soomaaliya Asia iyo Mareykanka hadii duruuftanada kuma jirto sadarteed nabad sugidda Soomaaliya qof background askarinimada waa loo dhiibaa qof civilna waa loo dhiibaa sharciga u ogol Agosto 2018 ayaa laga dhigay agaasimo ku-xigeenka hay'adda NISA madaad doortay mise madaxweynaha ayaa ku dooray adoo agaasimo guud oo madaxtooya in agaasimo ku-xigeen NISA uu laabatay waa jago kale oo ka hooseysa agaasimihii guud hadii waa daayo waxaan ku yiri aniga mar walba waxaan ka shaqeynayaa qanaacadeeda dalka sidii lagu maamulayay iyo falsafadii siyaasadeed lagu xukumayay iyo afkaarta siyaasadeed lagu maamulayay baan ku qanacsanaa marka macna ima sameeyeen inaan ku-xigeen ka noqdo iyo inaan agaasimo ka noqdo iyo inaan wasiir ka noqdo inaan shaqeynayaa macna ii sameeynaysa NISA marka aad timid iyo maanta oo aadan joogin guul ama dib u dhac maxaad farqiga u dhaxeeya maxaa way maanta timid iyo maanta wallahi sida fiican horta qof cadaalad ka shaqeynaya oo qiimeyn sax sameynaya fiican inuu qiimeeyo laakiin haddii aniga aan isku dayo aanan cidna ku xadgudbaynin hay'adaas culays fara badan oo haystay xaalada ay ku jirtay oo dib dhac u keenayay dhibaatooyin fara badan oo khaldanayd waxaan aaminsanahay inaan wax badan oo wanaagsan u sameeyay wax badan aan u hagaajiyay haddaan tusaale ku siiyo waxaan hay'adda ka joojiyay oo dadka finance-ga dhaqaalaha dawladda ka shaqeeyana ay marag ka yihiin wax allaala waxa dhaqaale ajnabi ka imaanaya waa jaray waxaana ku shaqeynaya falsafad ah haddii la rabo sirdoon madax bannaan oo dalku leeyahay waa inuu xoolo dalka leeyahay oo ku shaqeeyaa sida darteed projectiyadii mashaariicdii aan cid kale maalgashigeeda nagala dhaxeeyo dhan waa joojiyay anuu rabay askariga Soomaaliyeed ama sargaalka Soomaaliyeed nabad sugidda ka tirsan shaqada uu qabanayo inay ku jaango'naato awoodda dawladda ay leedahay waana meesha awoodda dawladda laga qiimeeyo qodobka labaadna waxa waaye
waxaan hay-adda ka saaray wax allaale iyo wixii faragelin ajnabi ahaa oo ku dhex jiray oo si xad dhaaf ugu dhex jiray oo si haddaan hadda ka sheekeeyo laga nexi karo ku dhex jiray ilaa aan gaaray in xafiisyada qaar yacni lagu dhex arki jiray qof ajnabi oo fadhiyo waxaana gaarsiinay xarumaha hay-adda oo dhan inuusan qof ajnabi imaan karin isagoon ballan lahayn hadduu ballan leeyahayna xafiiska arrimaha dibadda uu la xiriirayo xafiisyada arrimaha dibaddana uu ku qaabilayo laakiin centerka qof ajnabiya ma soo geli jirin laakiin waayadii hore waxay gaarsiisneed in lagu yidhaahdo qaybta waddan hebel qaybta waddan hebel qaybta waddan hebel qaybta waddan hebel waxaas oo dhanna waa ka sifaynay marka faragelinta inaan ka sifaynay tan saddexaad oo ugu dambeysana waxaa waaye tayada aqooneed tayada shaqo garaadka dadka meesha ka shaqaynaya oo aqoontooda iyo kartidooda aada u sarreysay in hay-adda ay gaartay inay ka fiicnaato ereygaas waliba waa isticmaali karaa sirdoonnadii dariska nala ahaa oo qaarkood aan annaga macallimiin u noqonay oo aan koorsooyin siinaynay oo aan tababaraynay ilaa aan gaarnay sirdoonnada afrika kuwooda ugu fiican ma gaari karin laakiin tartan aan dowlado badan dhaafnay baan gaarin dhaqaalaha dibadda ayaad soo qaaday in hay-adda aad dhaqaale ka jirta dibadda ka imaanaya dhaqaalahaas ma noo sheegi kartaa meelo iluhu ka imaanaya fasax uma haysta hadda inaan sheego waddamadaas ma sheegi karo waa in la ii fasaxo inaan sheego ma sheegi karo laakiin waa ka joojinay qaybaha niisa ee ku dhex abuurnaa hay-adda gudaheeda ee hay-adaha kale ahaa ayaga tiradooda iyo dalalka ay saameynta joogtay oo xafiisyada ku lahaa waxay ku soo galayeen hab ay u bixinayeen projectiyo dowladda Soomaaliya ay ku kaalmeynayaan mesela waxaa la dhahayaa ka hortagga burcadda waxaa la dhahayaa la dagaalanka al-shabaabka waxaa la dhahayaa la dagaalanka crime-ka dambiyada abaabulan waxaa la dhahayaa hijrada sharci darrada ah ee dadku ay sameynayaan baa idinka kaalmeynaynaa laakiin waa qof ajnabi institutionka soo dhexgalaya meel adduunyada ka dhacdana ma jirto sirdoonka dalka inuu qof ajnabi intuu soo galo uu talo ku yeesho dalalka hay'ada ah oo dalka joogay mise waa dawlado iyagu tusaale ahaan dawlad hebel ayaa hay'adda nabadgelyada Soomaaliya waxay siisay mashruuc la xiriira la dagaalanka dadka sharci darrada socdaalka ku yimaada ma dawladda bixinay mise hay'ad ayaa la soo marinaya ma dawladda bixinaysa sirdoon dawladda bixinaya oo intuu yimaado niisa Soomaaliya dhahay waxaan ka kaalmeynaynaa argagixisada waxaan ka kaalmeynaynaa kan laakiin anu markaan la mid waxaan ku iri wax allaale wixii dhaqaale aad siinayseen markaan u baahan anaga idin sheegay iska haysto si laakiin diblomaasiyo edebsan inta qofka sargaalka ah haduuba ajnabi mishaar ka qaadanayo aqeedadiisa siyaasiga iyo aqeedadiisa wadaniyada ay dhaawac soo gaaraan fahad intii aad joogtayniisa inta aad sheegtay hadii aad ka qabatay dhinac kale waxaad ogolaatay sida dad badan kugu eedeeyaan ama siyaasiyiin kala duwan sheegaan in hay'adan ay noqoto hay'ad ay leedahay dawladda Qatar oo iyadoo dhaqaalaha mashaariicaha ay joojisay laga qaadan jiray ay dawladda Qatar bixiso eedeynta maxaa uga jawaabaysaa walaalow يعني في نظرية مركان آمن سنة هاي إن دقالة أجنبية هي أثر دون لقى إلى ما إيسا ما حي هذا الدولة ده هسكم بدأ أنا نقول هذا تصالي يربان كسينا يا تذكر أن مرقاتي إكيهن هي أدى وحن كسميني اسميال وذواوين أو وضع الصب كل بجت كدولة سوماليا لقى بحيه حل شيلين أو دولة أجنبية لقى ما بحين اسميال وواوين وأدي أدو عجيب بدن بان لقى دس كل جيت رصيد كبجت كدولة سوماليا وزارة المالية ده بحنيس haddii marka aan dawlad dhaqaale uga raadinayo dhismayaasha saxta ku bixin la iska daa wax kale xisaab xir hay'adda ma samaysay marka dhaqaalaha laga hadlo hadii way leedahay budget bay leedahay wasaaradda maaliyadda la xisaabtanta hanti dhowrka la xisaabtama bil munaasaba hanti dhowrka qaranka wadna warsan kartaa waa markii ugu horeysay oo intaan anigu u yeeray aan ku imaada xafiiska imaada baara documentationka iyo waraaqahan fiiriyo Fahad Yaasiin waxa jirta hadal aad iyo aad u soo baxay 45 sano ee xukunka ee nabadeen nolol u joogay madaxweyne Farmaajo dalka hogaaminaya aadna taliyaan nabadgelyada inta ugu badnayd aad ahayd si weyn u soo shaabaxay waxyaabo badan laga sameeyay isku milanka al-shabaab iyo niisa waxa la tiirinayaa adiga shakhsi ahaanta Fahad in isku milankaas aad qayb weyn ka qaadatay hay'adana badankeed loo bedelay inay yihiin dad ka tirsan aan maanta la kala garan karin qofka niisa iyo qofka shabaab maxaa uga jawaabayda inta laba jawaabood waaye horta markooda wax aad loogu qoslo aadna looga naxo mustawa hooseeya waaye dadka Soomaalida in dad siyaasiyiin oo halkaas dhahay way jiraan marqaatiga ugu fiican waa xaqiiqada waa dhabta
hay-addaas intii aan joogay dadka Soomaaliyeed ee Muqdisho jooga adoo waa warso dilalkii shirqoolka ah hoos buu u dhacay almost waa tirtirnay dadkii bastooladaha magaalada Muqdisho lagu diri jiray oo shaqo weyn ka qabanay oo degmooyinka gaarsiinay 3 mitir walbaba askari dharcada oo bastoolad wata oo amniga ilaalinaya 3 mitir baan gaarsiinay magaalada Muqdisho waxaa hoos u dhacay maaha waxaa tirtirmay in qof bastoolad loola baxo lagu dilo waadna garan kartaa xamar heerkay gaarsiisneed waxaa hoos u dhacay qaraxyadii waxaa hoos u dhacay dilalkii qorshaysnaa waxaan gaarsiinay dadka magaalada Muqdisho xildhibaanada iyo siyaasiyiintu inay xaafadaha qaarkood intay sii fogaadaan ay xaafado kale ay ku noolaadaan 2018 amniga magaalada Muqdisho ma soo fiicnaaday mise waa sii halaabay dadka shacabka Soomaaliyeed warso marka ereyga isku milanka ma aqaano wax laga wado hataa yani macnaha uu sameeyay aniga ma garanayo laakiin hay'adda sirdoonka Soomaaliyeed awood ma u yeelatay inay xogta al-shabaab hesho awood ma u yeelatay inay shabaab intay dadka ka shaqeeya oo xogta u keeni kara inay intay dhex gasho xog qaranka anfacaya ka soo hesho laakiin haddii aanu annaga isku milanay amniga magaalada Muqdisho sida u wanaagsanaada uma wanaagsanaadeen adiga fahad al-shabaab xiriir toos inaad la leedahay lagu weedaya oo leeyahay magaca kuugu baxay ee la kunyada lagu raaciyo ama la qabka ama Abu Camaar magaca Abu Camaar horta waxa bixiyay dawlad ajnabi ah oo dhibsanaysa Soomaaliya horumarkay gaartay waxayna u soo dhiibtay dad ayaga u shaqeeya oo magacaas faafiyay dawladdaas wata mar raba magaceeda hadii aan sheego laakiin Abu Camaar hadda aniga kula hadlay ceeb ma arko Camaar wiilkayga la dhahaa Abu Camaarna waa magac ceebna ma ahan khaladna ma ahan adigoo wiilkaaga codadka hadii lagu magac daro khalad ma arko laakiin waa magac la rabo in si kala loo dhigo laakiin aniga ceeb ma arko Abu Camaar aniga Abu Camaar baa maxaa khalad ku jira ma jiro wiilkayga la dhahaa Camaar ma jiro ayaad leedahay xiriir ama wada shaqayn nooca doonta ugu yar ama isku milan oo u dhaxeeya al-shabaab iyo nisa fiiri waxa la fiiriyaa qofkaanu waxa uu qabtay ma al-shabaab ay u adeegeen waxa ay siisaa ficilkaas oo dhacay baasaas ahaa laakiin magaalada Muqdisho amnigeeda dawladda Soomaaliyeed ee xilligaas maamuleysay ma hagaajisay way hagaajisay ma hormarisay way hormarisay dadka ereyga faafinaya waa dad dhibsanaya awoodda aanu ku dhex yeelanay al-shabaab dhexdiisa xogta inaan ka heli karno Fahad Yaasiin waa kaaga mahad celinaya waraysiga mar kale marar badan Twitter-ka hay'adda NISA waxaa lagu baahiyay macluumaad la xiriira waxa ka dhex jira kooxda aad la dagaalamaysan ee dawladda Soomaaliya ka soo horjeeda kadayna waxa ay lahayd isku milan baa idin ka dhaxeeya warkaas waxa uu ahaa war caadi oo dhacdo saxaafadda loogu talagalay tusaalahaan inay baahiso khilaaf ka dhex jira kooxda gudaheeda maxaa Twitter-ka NISA loogu baahay yaa way saxaafadda ku dhacday inay qorto xamar joogto maba awoodaan be they can't saxaafadda Soomaalidu waxay awoodaa inay ka hadasho waxa gudaha ka dhex jira kooxda intay ka ogaan karto xuduud bay leeyihiin waxaa jira oo ku faraxsanahay su'aasha inay weydiisay adduunyada oo dhan hay'adaha amniga ka shaqeeya xogta argagixisada iyada adduunyada la wadaagto qaarna saxaafadda si liiga u siisaa qaarna ayadaa sheegta idinka maxay wax ka faa'iideyseen warkii al-shabaab inaad ku baahisaan Twitter-ka dawladda Twitter-ka kala noqotaan ayagu Twitter-ka NISA ay leedahay waa Twitter loo sameeyay in shacabka Soomaaliyeed xog amni ay ku helaan waxaaba loo furayba dadka in loogu warbixiyo marka warbixinta xasaasiga oo aysan warbaahinta Soomaalida awood u lahayn inay sheegaan annaga xaq u leh inaan sheegno Twitter-ka dhanba waxa loo furay in ummadda lagu hadlo fariinta warkiinu gudbinayay ee gudaha kooxda gaarayay maxay macnaheed ka leeyahay waxa waaye labo horta inaan u sheegno inaan xogtooda ognahay labo inaan ummadda Soomaaliyeed oo la cabsi geliyay inaan u sheegno wuxuu inaysan wax weyn oo laga cabsadaba ahayn labadaas qodob ugu muhiimsanaa mararka qaarna waxaan u sameynaynay khatar amni oo dalka ku soo socotay baan si sophisticated ah oo xirfadaysan baan u sheegaynay markaan xogtaas ay liigarowdana dadkii mu'aamarada ka shaqeynay oo dhan waa kala carari jireen marar badanna way dhacday waxaan rabaa
intii hay-addan aad joogtay waxaa dhacay khilaaf siyaasi ah khilaafka siyaasiga wuxuu ku saabsanaa kiiska Jubbaland Fahad waxa uu ahaa buddigaha dawladda iyo dowlad goboleedka Jubbaland ee arinta u dhaxaysa qofka dawladda Soomaaliya metelay ee wada hadalka kula jiray maamulka Jubbaland xilligii 2018 ilaa 2019 sax ma tahay sida hataa ii weydiiso kala waay aniga dawladda mas'uuliyiinteedan ka mid ahaa marka dhacdo kastoo dawladda Soomaaliya khusayso qaar ka mid ah qayb waa ka noqon karaa okay marka Jubbaland teeda inaan qayb ka noqdo de shaqadeeda laga yaabaa inay sabab 2018 saan xogta ku hayo waxaa jiray kulan dhex maray adiga oo Fahad oo ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan taliyihii nabad sugidda ahaa ama metelay madaxweynaha qaranka Axmed Madoobe oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo madaxda ugu sareeya laamaha amniga ee Kenya mid kamid ah kulankaas inuu ka dhacay Nairobi looga wada hadlay inaad Kenya ka dalbateen ka dowlad federaal ahaan arinta Jubbaland ee gudaha ah inay faragelinta ka dayso ay kala shaqeyso sidii Axmed Madoobe iyo idinku oo khilaaf xiliga idin dhaxeeyay aad isku fahmi lahaydeen kulankaas ma dhacay kulankaas wuu jiraa aniga Axmed Madoobe inaan mas'uuliyiinka Kenya la kulanay doodeedana ay ahayd inaan Kenyaanka u sheegaynay Soomaaliya arrimaheeda faraha ka qaada arinta Jubbaland faraha kala baxa faragelinta Soomaaliya faraha kala baxa wixii aad Soomaaliya uga baahan tihiin xamar la soo xiriira dawladda dhexe kala soo xiriira Axmed Madoobe oo fadhiyana u sheegay waliba hatta waxaan gaaray inaan ku iraahdo iyadoo mas'uuliyiin Kenya fadhiyaan Axmed Madoobe u sheega madaxweynaha farmaajo waaye ma aha madaxweynaha Kenya احترامك iyo qadarinta iyo saaxiibtinimada uu muujinayo dawladda Kenya waxa ka mudnay dawladda Soomaaliya inuu muujiyo markaas dawladda Kenya inaad kala hadashaan Axmed Madoobe madaxweyne farmaajo ixtiraamo inta uu ixtiraam lahaa madaxweyne Uhuru Kenyatta message-ka noocaasa sidee ayuu dawladda Soomaaliya ku ahaa Axmed Madoobe yaa keenay Soomaaliya yaa ku haya يو جوجا جبلان أحمد الله لكن وعمل حنا دورة جولات يا صوماليا كان أسوق تانك كيانا صار بوكس ما يمين هلا حاول ما يسألوا يهينين دورة شكو يمين هلا كوال واحد لقوا حريني عيدن كعم سومي كم ده هاينكي هذا الشيء كوين كمقتة وإسلاليهن هذي الإسراع راعينا وإسراع راعينا هذي لك الجرنا ولا كل جريا أحمد مذوبي سيدي سبا ومشروع أجنبي هو لوجو بيري صوماليا صوماليا أنا كنول هذا سكلا كوجوديو أحمد مذوبي وكنسر سياسة صوماليا كجرا maalinta uu siyaasadda Soomaaliya meel uga baxo maalintaas ayna Soomaaliya hagaagaysaa Axmed Madoobe waa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland waxaana uu kamid yahay madaxda ugu xukunka dheer ee joogtay dowlad goboleedyada mana aha annagu ma hayno halka aad ugu yeertay kansar inuu kansar ku yahay siyaasadda Soomaaliya 2018 kulankaas waxaan ogaanay xogta sida aad u sheegay si kale inay ahayd oo ah inaad ka wada hadasheen Kenya Axmed Madoobe inuu madaxweynaha dowlad goboleedka sii ahaado teeramka u bilaabanaya Agoosto 2019 idinkana uu idin fulinayo mashruuciina ku wajaha idinka markaa leeyahay dowladda federaalka ayaa ula jeedaa idin fulinayo mashruuciina ku wajahan 2021 doorashada inuu xildhibaanada idinka saacido sidana ku soo heshiiseen ma kulanka heshiisku ma dhamaanin khilaafku ku dhamaaday annagoo isfahminaan soo kala tagnay haddii aad dib u xusantahay taariikhda diyaaradii Muqdisho markaan imaaday oo elboor ka soo degay intii hawada aan soo saarnaa waa xiriir Kenya u jirta Soomaaliya marka sidee xiriirka ugu jirta hadaan ku soo heshiinay Kenya annagoo iskhilaafna soo kala tagnay Kenya marka aad la kulantay inay ka codsatay in ay ka tanaasushaan dacwadda badda si ay iyana malafka Jubbaland ku wareejiyo masaxda siyaabo kala duwan kulankaas siyaabo kala duwan marba kulankaas inaan ku soo qaado laakiin dawladda Kenya inay arinta badda rabtay in laga laabto arinta badda ay dawladda Soomaaliya ku barashar gareysay is not secret dadka dhan baa wada og in dawladda Soomaaliyeed u dhibaatooday kiiskaasna qof kasta oo Soomaaliya og waana sababta Axmed Madoobe Jubbaland loogu hayo dan Soomaaliya looguma hayo haddana uma joogo dan Soomaaliyeed waa eedayn weyn Fahad eedaynta Axmed Madoobe anana Axmed Madoobe haddana lama joogo ee aad ugu yeertay inuu kansar ku yahay siyaasadda Soomaaliya intii aad joogteen wax yar baan ku sheegay ma jeceshahay inaad barato quraanka kariimka ah iyo culumta shariicada ugu kaalay markaska Nuureyn online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka
higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga axmed madoobe madaxweyne cabdullaahi yuusuf waa la diriray soo magac diineed wato madaxweyne sheekh shariif waa la diriray soo magac diineed wato madaxweyne xasan sheekh teeramkiisii hore waa la diriray isagoo magac kale wata madaxweyne farmaajo waa la diriray isagoo magac kale wata xasan sheekh mar labaad la doortayna waa la diriri doonaa intaas marka haddaan annagu ka gardarayn madaxweynayaasha kale oo dhan masaan gardarnaa cabdiqaasim baysan soo gaarin inta kale wuxuu ahaa dhibaato dowladda Soomaaliyeed jiritaankeeda kansar ku ah haddaan annagu ka gardarayn xasan sheekh kama gardarayn sheekh shariif kama gardarayn cabdullaahi yuusufna kama gardarayn xasan sheekh hadda la doortayna wuu dhibi doonaa taariikhdan ku sheegi doonaa shirkii 2018 Nairobi ka dhacay marad ka soo laabatay kadib waxaa jiray ra'iisul wasaarihii xilligaas iyo adiga inaad tagteen Kismaayo markaad tagteen Axmedoobe inaad la kulanteen si loo dhameystiro wada hadaladiinii Nairobi sidaad sheegtay aad waa fashilmaatay laakiin waxaan haynaa xoga inaad tagteen oo aad tagteen Kismaayo oo aad la fariisateen Axmedoobe oo aad soo heshiiseen dibna aad u balanteen Muqdisho inuu yimaado isku daygii u dambeeyay buu ahaa inaan bal annaga Soomaali ahaan isku barsano waa run ra'iisul wasaare xasan ali khayraat tagay aniga wafdigiisaan ka mid ahaa 3 maalmood iyo 4 maalmood baan joognay markaan ka soo laabanay ka bacdi xamar buu asagana yimid wada hadalkeena wax macnaa ma dhalin wax miraa ma dhalin marka uu xamar yimid oo aad weydeen dantii aad lahaydeen waxaan maqalnay inaad isku daydeen inaad qabataan oo xirtaan madaxweynaha Jubbaland martiba uu noo ahay qof marti ku ama xirisa halka wasku ani xasan axmedoobe u martiyay أنا مرتي أمي وحرلا هلا كواس كده يدين حتى صورة قلم أها بدقان صومالي حتى معها مرتبة أون نقضي أنا مرتبة ونون نقضي ومدحويني صومالي مرتوها رئيس الوزراء مرتوها سيكون عكرت قف مرتكو أنا حرت قولي مدحوينها قولوا كل جمال كل جنب ودقنا اسكت ضيق أسلاك هو داعي إن اسكت ضيدين إن حكسان وهالك كويسان أنت الدور شد جبلان داعيسو ما دام هشيسكي ولا الخرافات وبحاس دقان صومالي معهن أحمد أبو دانس دقالة إنه asagoo martino alama dagaalayno 2019 Agosto isla Jubbaland ku jira doorashadii martiqaadka uu xamar ku yimid madaxweynaha u diray madaxweynuhu u yimid way wada hadleen way sheekaysteen waan soo tashanayaa buu yiri marka si ay ku imaan karto ani ma garanayo isku faham way marka faham la'aanta maxaa keenay maxaa waxa weyn ee idin dhaxeeyay ee aad isku haysan root-ka dhacdada ugu weyn dan Soomaaliyeed baa la isku khilaafay مصلحة الصومالية اللي اسكو خلاف مصلحة جبلان تهلا أو دن صومالية مصلحة الصومالية كم تها جبلان هذه هل سؤال دان كو ديود إيجا جوابته قف كستو صومالية هي إيجا جوابه واي لح مدحوين أولا درسين واي وكلي وجوجا لكن دي أدون كانوا وايز بدلا رجين كايز بدلا مدحوينيا الصومالية إز بدلا مدحوينيا كينيا إز بدلا كو إثيوبيا إز بدلا دعي ولا صوت دورتي أحمد ولا صوت دورتي كم جوجا هذا إنه حكوا جوجا سيدا طبعا دورشة صندوق لا دقي ولا صوت دورتي دولتنا أقبل شيء سيدا لو دورتي وأنا قانا هلا كواضح أقبل أنا مرة كان أدو قصلو حكم إذا مرة أحمد دورشة حرة وكشكل هلا كواضح أقبل شيء نتيجة دورشة دولة الصومالية ويقبل مدحونا الصومالية صوت صاري إنه نتيجة دورشة أقونسين ما يمسو صاري من جيبوتي مركو عادي مدحونا مسو صاري وحصو صاري إنه لما سنة أو كملجار أو سي سجى أطرايا وده هذا الذي دورشة الفدرال كأنه السعودان oo Puntland ay shardi ka dhigatay inay Jubbaland soo fariisato maanta waxaan aaminsanahay Puntland inay ku khasaartay xiriirka ay Jubbaland la sameystay waagaas madaxweynayaal hore oo xukunka soo maray iyo siyaasiyiin badan 2019 doorashadii markay dhacday Axmedoobe hawadaad ka xirteen waa la dagaasheen dagaalkaas intaan aadan ka hor diyaarada ciidanka Ethiopia ay leeyihiin ayaa lagu eedeynayaa adiga fahdan malafka inaad haysay in dawladda Ethiopia laga soo kareeyo commando si ay Axmedoobe u qabtaan oo weeraraan Kismaayo hawadana laga culiyay Axmedoobe eedayntaas oo ayaan shirqool adoonaysa in adishaan ayuu marar badan sheegay maantay waa markii ugu horeysay aan fursad u helay su'aasha inaan ku weydiiyo ma saxba inaad ka shaqeysaan shirqool Axmedoobe lagu dilay oo dawlad kale oo Ethiopiana oo Soomaaliya ka madax banaan oo waxba ka gelin ay soo adeegsataan fiiri caalamul mu'amaraat waayo waxa ay sheegaysaa anaga waxa fiican aan ka sheekeyno siyaasad caalamul mu'amaraat marka waa imagination waa iska qiyaas saadhici doonto qof iska wareeray oo kaligiis la sheekeysanaya waxa ku sheekeysan kara marka waxaan sheegaysaa anu waxaan fahmaynaa ma ahan erayo culculusna waayaba marka dawlad Soomaaliyeedna saa uma shaqeyso
institution qaran soo ama shaqeeyo kala aragti duwanaanshaha waa mowduuc laakiin hay'adaha ay isticmaalaysid erayo dawladnimo iyo qarannimo iyo dib u dhis iyo dal iyo saa loogama shaqeeyo waxba kama jiraan inaad arrintaas ku daydeen hadda fikirkaas ma imaan karaba aragti siyaasadeed waa gooni loolan siyaasadeed waa gooni laakiin sidaas mu'aamarada loo alifayo adduunyadana uma shaqeysaba laakiin fahad madaxweynayaal hore iyo dad sare iyo Axmed Madoobe oo ah sheegan uu dhibbanay yahay ayaa sheegay war sahlan ma cidda la eedeynayna waa fahad asaga rabaa inuu cadeen keeno hadda asaga rabaa inuu cadeen sheego dawladda Itoobiya kismaayo joogaan marna kalamin waa isku dayeen in airport ka tagaan oo ay diyaaradaha soo dhaweeyaan maalintaas dhaqaaqaas waa jiray fiiri xiriirka Itoobiya iyo Axmed Madoobe kala dhaxay taariikh dheer waay taas adiga la rabaa inaad baartid ciidamada Itoobiya waa joogaan ciidamada Kenya waa joogaan it's not secret Axmed Madoobe isku dayeen sidii roobo inaad soo xirtaan waay maxaa soo xireenaa madaxweyne meel jooga maamul haystee لكن تشد مامورك السعودية هذا دليل يا ولا وكانسر أو ما قلت هذا أساليب سياسية كلها معاملين أساليب ميليترية كلها معاملة سيكون إيمانه ومدحويني ما الله دورته فرديه أما وده صح على دورته أما وده خلنا على دورته هو فرديه أحمد دنتي نمرك سياسي كويدين لبهم كويلاتن دبدين بسوا إن الدجال علاج أو لفتشبيسة أو إلا ديارها إن لقى حرا إلا قدوميو إن ديارها هو ده كترته لقى سعره رادارك إلى هيرك على جارتين. مصالح أنت ديارها وحي خصيصي ديارها أجنبي بعد الكسر إدراك سو جلاي. قضينا مرقاتي بكتها سماء مرقاتي كتها ديارها شر إدراك بعد الكإيمانه كوا ساكنة إن ديارها الحرا. هلا كنت قاعد لكن أحمد مركو ربوا بحاي مركو ربوا إيمانه. عدة دبعته لكل مسودات صومالية قدومسين. أنا هدف كنا وحوها ديارها أجنبية شرع الدراسة ضل كو إيمانه إن لقى ممنوع. مياد علسين. وعلي نواجهني قرب بدنا نجوجني. ديارة وكل من آدم بردوا على شرطي مالت على مسارك أحمد هو الصومالي سوق الشيء كانت من ذلك كينيا ديارة السنة بدأ يكون دكتي سنة بدأ يكون بحر. حبك يكون مادين يحبك لو علينا يباك الدونا. waxay ku yimaadaan habay ka dhigayaan in ciidamo ama Soomaaliyiin waji kale ku imaanayaan ana qabatayntii diyaaradeed ee Jubbaland saaray inay sax ahayd baamsintahay waxna mogtahay waa sax waxna waa khalad oo mowduuc kale laakiin waxaan ka hadlayaa go'aanka waxa dhaliyay waxay ahayd hawadii Soomaaliya oo dal shisheeye si sharci darro ku soo galay Axmed Madoobe dagaalkiisa su'aasha ugu dambaysa 2018 maalinta 15 May howlka ayuu ka campaign gareeyay waan idinka guuleystay isagoo oo madaxweyne Jubbaland waa jooga Fahad iyo Farmaajo iyo nabada nolol xukunkooda ka digeen wuu ka guuleystay soo wada barnaamij maxay dhib leedahay anaga mabaadi'deena waxaan aaminsanayn baan ku shaqeyneen oo aniga hadda kule waa kansar laakiin wada ka guuleystay hadda siyaasadda Soomaaliya in laga badiyo ceeb ma aha khaladna ma aha doorashada mar baa gashaa oo guuleysan mar kale aad gali ma guuleysanaysid waa natural adduunka dhan bay ka dhacdaa waa mahadsan tahay Fahad Yaasiin waxaan galaynaa markan kiis kale oo xasaasi ah oo isla hay'adda NISA shaqadeeda ku saabsan waana kiiska sargaalad Ikraam Tahliil waxaan doonayaa inaan furo kiiskaas oo muhiim oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay eegayaan adiga Fahadana aad u tahay buddiga hay'adda NISA maadaama soo xukuntay waa kiiska maqnaanshaha sargaalada oo ah gabar ka tirsan hay'addan muddo ku siman sanad aan rag iyo ruux meel ay joogto ma nooshahay ma dhimatay aan cidna warahayn ehelkeedana kurba weyn ku haysa iyo dadka Soomaaliyeed siyaabo kala duwan saameyn ugu leh kiiskan ayaan rabaa inaan furo waxa la aaminsan yahay in xogtiisa oo dhan aad hayso ma iga aqbalaysaa inaan ku weydiiyo adna iga jawaabto sida saxda ah ee aad macluumaadkiisa uga haysid soo dhaw bishaaro waxaan kuugu bishaaraynayaa application-ka Baysi waxa uu ka caawinayaa inaad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta Baysi waxaad ka heli kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka